ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland ayaa mar kale waxay isku soo dhiibeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. halkaasi ciidamada waxaa ku soo dhaweeyay taliyaha guutada 10aad ee qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Beled Xaawo ee gobolkaasi ayagoo sheegay in ciidamadan maanta ku soo biiray ciidamada xoogga dalka la qarameyn doono isla markaana ay xuquuqdooda asaasiga ay heli doonaan. sidoo kale ciidamada maanta ku soo biiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay waxayna sheegeen in maamulka Jubbaland aysan ka heli jirin xuquuqdooda asaasiga isla markaana ay haatan diyaar u yihiin inay u adeegaan qarankooda. Shilaa magacayga waa Maxamed Cabdiqaadir Cusmaan waxa ka mid ah saraakiisha daraawiishka ciidamada Jubbaland gobolka Gedo gaar ahaan degmada Beled Xaawo. waxaan Jubbaland ahayn muddaha sana waa ka mid ah ciidamada saraakiisha Jubbaland ama ciidankan oo lagu soo tababaray gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Doorow. muddaha sana la shaqeynayay maamulka Jubbaland waxa bayatan aan ka helo xuquuq ma jiraan. haddana waxa noo diyaar u nahay inaan ka mid noqono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo difaacna dalka iyo diintaba. Bismillahir Rahmanir Rahiim. ciidankan aad arkaysaan ku sugan meeshan waa ciidanka daraawiishta Jubbaland ku soo tababartay Doolow iyo Beled Xaawo. muddo hal sano ah ayaan halkan joognay oo aan wax xuquuq ah aan helin Jubbaland aan ka helin oo aan ku shaqeynay hubkanaga iyo waan u shaqeynay deegaankanaga. maanta waxaan go'aansanay inaan ku soo biirno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aan si waxa waaye karti ah oo dhab ah oo ka go'naansho ah aan u shaqeynay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka halkan fadhiyo oo aan hadda aragno oo haddii aad heedeen ciidan daraawiish saacadan laga bilaabo waxaad noqon doontaan ciidanka dawladda. misfaan mi maqashaan ciidanka dawladda noqon doontaan waxaad noqon doontaan dad xaquuq leh waxaad noqon doontaan ninkii aan lambar lahayn inuu lambar qaato. mees maqalna marka saacadda hadda la joogo laga bilaabo adinku waxa idin fuulay waajib dawladdana mid baa lagu leeyahay adinku mid ku leeyahay waxa waayo wax kasta oo waajibaad ah oo dawladda ciidiina iyo dalkiina iyo diintiina waxa la rabaa inaad sidii saxda u fulisaan. bismaqlena dawladdana waxa lagu leeyahay wax kasta oo agab ah haday diriis tahay haday caafimaad tahay haday hub tahay oo qofkii waralo oo aan hub haysan diintiina badan qoriin oo wadataan intana dawladda lagu leeyahay. sidoo kale wasiirka amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubbaland oo isku dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. wasiir Dhuumaal ayaa sheegay in ciidamada daraawiisha oo ay yeelato dawlad goboleedka Jubbaland ay ugu dambeeyeen ciidamadii wasiir janan uu ku wareejiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. haatan ay yihiin wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay isku dhiibeen dawladda federaalka kuwa aan waxba ka jirin.